xaflad si heer sare loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay maamulka Galmudug oo dhawaan ka xortay Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Johannesburg. Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen jaalida Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada dhexe ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jiray culumaaddin, ganacsato, waxgarad, haween, dhalinyaro, mas'uuliyiin ka socotay dowladda Koonfur Afrika iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani, iyadoo dadkii ka soo qayb galay xafladan ay ku dhawaayeen ilaa iyo 1,000 qofood. dadkii kala duwanaa ee ka hadlay ayaa dhamaantood hambalyo duco iyo gubaabin u direen maamulka Galmudug, gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed, gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka. Galmudug waa u jeedin Galmudug waa Galmudug arkaydeen waa Galmudug aan ku dhisnay fawdo iyo dhibaato iyo in dariska iyo dadka walaalaha ay la degan inay dhibaatayso oo ku dhisan sida ay iyagu isu doorteen inay walaalahooda ula noolaadaan cidna ayna dhibaatay deegaan kalena ayna maaragtay dhibaatay. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa nabaddaana dooranay sidoo kale inay noqdaan kuwa nagu hogaamiya cadaaladda, sinaanta iyo hufnaan iyo horugac. ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa maamulkooda noqdo mid ka shaqeeya nabadda, mid ka shaqeeya aqoonta, mid ka shaqeeya caafimaadka, mid ka shaqeeya wax alla wixii bulshada waxtar u ah. Galmudug waxa weeye xuduudii dalka Soomaaliya. cadowga Soomaaliya dhowr jeer ay isku dayeen Soomaaliya kala jara. mar haddii halkaas laga kala jaro Soomaaliya waa kala go'an. ma noqon bidillaahi kariim caawana waxa weeye in aan ku dabaalmagno xafladan sida quruxda loo agaasimay ma ahan Galmudug kaliya laakiin waa doorashada xaq ah oo ka dhacday Galmudug aynan ku jirin qolooyinka wadamada dariska ah iyo international community. Galmudug meel cad bay soo istaagtay si xaq baana doorasho u dhacday, madaxweynaha xaqna waa lagu doortay Cabdikariin Guuleed. ilaahay afurlay. Children of the world have a right to a better health, clean water, and a safe environment to grow up in. We also demand the same rights for the children of Galmudug and all of Somalia. oo cid kasta oo Soomaaliyeed aan aaminsanahay in ay xoog saarto sidii Galmudug nidaam iyo maamul kala dambeyn leh iyo horumar leh si looga sameyn lahaa in lagu taageero barnaamijkaas. runtii waxaan u mahadcelinayaa oo u hambalyeynaya madaxweynaha la doortay walaalkeen Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Maxamed Xaashi Carabi. sidoo kale madaxda safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika ayaa iyaguna dhankoodii hambalyo iyo gubaabinta la mid ah u diray maamulka cusub ee Galmudug. u qaybsanaha hidaha iyo tacliinta safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika Cabdi Xalan Xirse ayaa u hambaliyay maamulkani. hambalyo Galmudug madaxda ugu sareeya walaalkayo Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweyne ku-xigeenkeeda iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo caam ahaan ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan reer Galmudug. hambalyaan idin leenahay. ugu dambeyntiisii hayaha xilka safiirka ahna xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika Mudane Ismaaciil Cabdulla Soomane oo isna khudbad ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay maamulka Galmudug una hambaliyay. waxaa sharaf iyo inaan wax yar dul maro Galmudug State heerarkii uu soo maray iyo dadaaladii la geliyay. waxay la tahay election iyo doorashada waxaa ka horeeyay waxgaradka deegaanka labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud inay waqti dheer aad u dheer bilooyin qaatay u fadhiyeen magaalada Soomaaliyeed inta aan isma maamul la gaarin si ay u turxaan bixiyaan ama ay u xalliyaan khilaafaadkii ka dhex jira gobolada deegaanadaas iyo deegaanayeen dadka maamulka samaystay, taasoo muujinaysa bisayl iyo Soomaalinimo. intii xafladani lagu taageerayay maamulka Galmudug socotay ayaa waxaa qadka taleefanka u qayb qaatay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isna dhankiisii u mahadceliyay dadkii soo qaban qaabiyay xafladan iyo guud ahaan Soomaalida Koonfur Afrika, isagoo kula dardaarmay inay taageeraan nabadda iyo horumarka ka socda dalka. sidoo kale waxaa xafladani intii ay socotay dhalinyaro loogu magac daray fanaaniinta Galmudug soo bandhigeen ciyaaro hidaha iyo dhaqan iyo riwaayad ka turjumaysay horumarka Galmudug, taasoo soo jiidatay ka soo qaybgalayaasha xafladan oo
qaadatay saacado badan ayaa ku soo idlaatay jawi wanaagsan. Cabdulqaadir Axad, SNTV, Johannesburg.